Dhulka maanta in bini'aadamka si nabad leh uu ugu noolaado waxaa kaalin weyn ka geystay Dulqarnayn. Dulqarnaynna waxa uu ka mid ahaa afartii hogaamiye ee dunida ugu waaweynaa. Laba ka mid ah hogaamiyaashan waxay ahaayeen kuwo gaalo ah, halka laba ka mid ahna ay ahaayeen kuwo Muslimiin ah. Fircoon iyo Namruud waxay ahaayeen hogaamiyaal waaweyn ee dunida soo mara, halka Nebi Suleymaan iyo Dulqarnayn hogaamiyaal Muslimiin ay ahaayeen. Qur'aanka waxaa laga fahmayaa in uu sheegayo waagii hore in ay jireen noolayaal bini'aadamka cadow ku ah. Mid ka mid ah dadkaasi ee nolosha bini'aadamka cadowga ku ahaa ee dhulka burburi jirayna waa Yaajuuj iyo Maajuuj. Dulqarnayn labadani qabiil markii uu meel ku soo xiray Yaajuuj iyo Maajuuj, bini'aadamka waxa u dhalatay maalin cusub. Qiyaamahana marka uu soo dhow yahay, dadkani dhulka haddii ay soo galaan, bini'aadamka oo dhan buuraha ayuu geli doonaa. Qisadani Dulqarnayn waxa ay ka mid ahayd qisooyinka Qur'aanka lagu sheegay markii gaaladii Carbeed nebiga ay ku xujeeyeen 3 su'aalood. Su'aasha koowaad ee nebiga la weydiiyey waxa ay ahayd in uu wax ka sheego qisada dhalinyarada yar ee godka ku jiray muddo dhowr ah, iyo qisada boqorkii adduunka oo dhan ku dalxiisay. Iyo sidoo kale waxa ay wax ka weydiiyeen in wax looga sheego ruuxda waxa ay tahay. Waxaanse muuqaalkan maanta ku arki doonaa qisada Dulqarnayn, boqorkii adduunka oo dhan ku dalxiisay. Waana boqorkii sabab u noqday in uu bini'aadamka ka badbaadiyo dadkii weerarka ku ahaa ee ka xooga badnaa. Dulqarnayn waxa uu ahaa boqor Alle awood iyo cilmi uu siiyey, waxa uuna kitaabka Qur'aanka uu sheegayaa in dhulka maamulkiisa oo dhan Dulqarnayn la siiyey. Waxa uuna ku safray Dulqarnayn dunida afarteeda dhinac, waxaana Qur'aanka lagu sheegay 3 safar uu galay Dulqarnayn. 3dani safar mid walbana waxa uu ku soo arkay waxyaalo cajiib ah. Waayo Dulqarnayn marka aayadda Qur'aanka ee qisadiisa ka waramaysa la fiiriyo, safar walba waxa uu Alle yiri fa'atbaca sababa, waxa uuna raacayay sababta. Ereyga sababta la sheegayna dadka qaarkood waxa ay leeyihiin sababtu ma aha midda caadiga ah ee aanu isticmaalno. Sababta la raacayna waa aalad ama system lagu safro, macquulna ay tahay in Dulqarnayn waqtigaasi uu ka safray.